waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed ganacsade ah canshuur bixiye ah degan magaalada Muqdisho magacayga waa Ayaan Bedel Cilmi waxaan ahay oone ama mulkiilaha hotel la yiraahdo Ayaan Hotel and Restaurant waxaa jirtay 3 bilood xilli ay ka soo ku dhow in la ii keenay rag 8 nin ah raggaas uu mas'uul ka ahaa xildhibaan ahna wasiir duulista iyo hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Omar uu mas'uul ka ahaa raggaas waxaa la igula ballamay in aan siiyo chief cunto iyo wixii kale service ay u baahan yihiin in aan siiyo la igula ballamay markay u dhamaatay muddo hal bil waxaan ku bilaabay wicis oo ay qabaan qarashkii chiefkii cuntadii iyo wixii kale dheeri ah oo loo sameeyay sidii qof xanuunsan in daawo loo soo gado qof kaar iyo wax u baahda iyo qofkii lama daayada dharka loo geeyo intaas markaan u sameeynay aan shaqadaas u soo qabanay halka bil ah oo aan sugeynay mushaarkanaga inaan helno iyo xuquuqda oo hotelku ku lahaa waxa aan weynay wax telefoonada naga qabto Cabdullaahi Omar xildhibaanka ahna wasiirka duulista iyo hawada Soomaaliya wuxuu diiday inuu telefoonada naga qabto muddan ka daba wareeganay waxaan u aragnay in ay cilado farsamo iska jiraan bishii kale oo waxa dhalatay November baa dhamaatay 16 October baa la ii keenay November baa dhamaatay December baa dhamaatay December markay dhamaatay baan waxaan bilaabay qayladaan aan u qayladaaminayo wixii asaga saaxiib la ahaa Maxamed Cabdullaahi Omar iyo raggal la ii keenay dadka u xigay chief ahaan Soomaali sometimes chief wax isku siisaa ama isku bahalkaysa wax badan baan wax isku dayay waxaan isku dayay waxba kama caana casaan xildhibaan ahna wasiirka Maxamed Cabdullaahi Omar wuu ila hadlay wuxuu igu yiraahday qayladaada ay soo gaartay cabashadaada ay soo gaartay ma waxa jira dib ka badan lacag subax barqadii bay soo wacay almost 4 saac subaxnimo waxaan ku yiri maya walaalkay dib ka badan lacag ma jiro waxaan u baahanahay lacag qarashkii hotelka la iska raba hotelka shaqaale ka shaqeeyo kira baxda koronta baxdo service la sameeyay 9 qof 8 qof dad ah baa ku degan hotelka waxaan u baahanahay dhaqaalihi hotelka ka baxay ugu dambeyn wuxuu yiraahdaa caawan ku imaanaya meesha aan ka filayay inuu asagu ii yimaado imuusan imaanin wuxuu ii soo diray nin ah agaasima ku xigeenka madaxtooyada nin ah magaciisa la yiraahdo Cabdullaahi Cabdikariin Cabdullaahi Sujuu buu ii soo diray Cabdullaahi Sujuu ay yimid wuxuu igula ballamay in maalinta Sabtida oo ay ka dhiman tahay 5 maalmood inuu lacagta bixin doono maalinta Sabtida ahayd oo ay ka dhimanay 5 maalmood Cabdullaahi nooma imaan Sabtideedii kaleeto uu imaaday maalintii Sabtida ahayd oo Cabdullaahi aan balansanayn Omar iyo Cabdullaahi waan la wada hadlay dhowr jeer bay soo waceen hadalay badan baa dhax maray ugu dambeyn waxay ii sameeyeen maalintii Sabtida ahayd oo aan balansanayn waxay ii soo dhiibeen lacag $3,000 oo ay dhaheen waxay ka mid tahay qarashkaaga lacagta inta kaleetana waxaan ku keenaynaa wiigan gudihiisa ma dhicin lacagta 3,000 ahayd baan qaatay Sabtida aan balansanayn Sabtideedii kaleeto waxa ii imaaday agaasima Cabdullaahi Cabdikariin iyo rag la socday qaab handadaad ah bay ii isticmaaleen oo du qabtid awood sheegasho inay ku jirto bay isticmaaleen lacagta inaan ka tago lacagta ku hartay waxay ahayd $13,255 lacagtii $13,255 ahayd waxay go'aansadeen inay ka bixiyaan lacag $7,000 ah without condition wax shuruud oo nagu xiri kartana ma lahan bay dheen waxaan ku iri dhaqan bay Soomaalidu leedahay dad waaweyn baa tihiin aniga dhagaxyo ma gadayo waxaan saxama bariis waaye waxaan u baahanahay inaan wada hadalno wixii aad haysaan aad bixisaan wixii idinku dhimanna aan ka wada hadalno waxay dhaheen hadayba wada hadal ku jirto ma yeeleen oday adeerkay oo hadaba ila fadhiya baan soo dhaxgalay wuxuu yiraahday rag soo tashaday baa tihiin aan tashano banaanka inooga soo bixin waa nagu soo laamteen daqiiqada ka bacdi waxay yiraahdeen Cabdullaahi Omar baan soo wacay wuxuu yiri
lacagta la soo laabta biri subax 4 saac baan gabadha lacagta u keenayna lacagtiina la soo laabta sidii bay wiilash nooga tageen 30 daqiiqo ka bacdi Cabdullaahi Cabdi Kariin oo wata nabad sugid laba gaari oo ciidan ah baa ii imaaday albaabka la soo garaacay waa laga furay taliyaha nabad sugidda ninaan isnaqaano wada shaqayn jirnay buu ahaa oo dhowr jeer gurigayga baaritaan iyo wax lamid ah u imaaday waa imaadeen raggii bay gogosha ka soo jafeen oo hurdo hoteelka u wada galeen way soo kaxaysteen waana la tageen waxay ahayd 12 January ilaa iyo hadda waxaan raadinayay xal aan saaxiib ka raadiyo aan qaraabo qofka ayaga la aragan ka raadiyo aan cid walba ka raadiyo waxaan raadinayay xal ka duwan mid aan maanta aan taagana wayna suuro gali weyday intaas ka bacdi waxaan codsanayaa madaxda sharafta la ka codsanayaa taliyaha ciidamada iyo nabad sugidda aan ka codsanayaa booliiska aan ka codsanayaa rag Soomaaliyeed oo xiran direyska qaranka Soomaaliyeed baa boobay waxay isticmaaleen hantidaydii waxay isticmaaleen xoogaygii waxayna ku darsadeen awood nabad sugid baa la ii keensaday raggii xoolahaygii cunayna waa la kaxaystay waxaana la iiga soo duulay madaxtooyo agaasima ku xigeenka madaxtooyada qaranka Soomaaliyeed weeye ninka gurigayga yimid labada jeer saddexda jeer laba jeerna wax waan u eg oo maro handadaad ay tahay ila yimid marna ciidanka ila yimid ugu dambeyn madaxtooyada dacwadan u dirsaday waxba kama soo jawaabin waxaan codsanayaa hay'adaha ammaanka iyo garsoorka qaranka Soomaaliyeed ka codsanayaa waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed canshuur bixiya waxaan leeyahay xaq shaatiga waxaa la rabaa in qaranka loogu adeego iyo inta tabarta yar ma ahan in lagu dhaco inta tabarta yar ma ahan in lagu boobo dadka aan madaxtooyo gali karin ma ahan in lagu dhaco dadka aan shaatiyada birta ah xirnay shaatiyada qaranka oo dadka lagu boobhayo waxaan ka rabnaa dawladda sharafta leh inay wax ka qabato waxaan dacwo ka ahay wasiir ahna xildhibaan Cabdullaahi Omar oo ii hoday oo gurigayga rag soo dajiyay hoteelkayga 3 bilood u cunayeen u cabahayeen markuu lacagtii 3,000 oo kamid ah uu bixiyay inteedii kalena soo isticmaalay wajiyo kale oo ah in lacagtii la boodo la inkiro xoog la isticmaalo askar liye adeegsado raggii hoteelka jiifay oo xoolahayga cunayna la kaxaysto raggaas la kaxaystay oo gurigayga laga kaxaystay waxa la geeyay oo ay joogaan Sheekh Nuur Maxamed oo ah xildhibaan wasiirka diinta iyo awfaaqda Soomaaliya shakhsiyaadka dambiyada intaas laga gabada galay waa wasiir waa xildhibaan waa agaasimo madaxtooyo ma garanayno cid aan u dacwoono mar labaad waxaan nahay dacwo ka nahay agaasimaha madaxtooyada waxaan dacwo ka nahay Maxamed Cabdullaahi Omar